deeqda raashinka oo ka timiday dalka Turkiga ayaa waxa ka faa'iideystay ilaa 200 oo qoys oo ku dhaqan magaalada Saylac. munaasabadii arrinkaasi ayaa waxa goobjoog ka ah xogayaha fulinta dowladda hoose Bashiir Cilmi Waaberi isagoo hoosta ka xariiqay cadadka deeqdani iyo cidda soo dirtay. dadweynahan ayaa deeqdan muddooyinkii ugu dambeysay ay aad uga baahnayeen. xogayaha Bashiir Cilmi Waaberi oo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. ma bacdi aniga xogayaha dowladda hoose Bashiir Cilmi Waaberi waxaan raashinkan kula soo wareegnay guddigayga aan wada soconay sida Rashiid Xasan Geelle iyo taliye ku-xigeenka qaybta Cusmaan Xaashi Daahir ayaa waxaan raashinka kula soo wareegnay degmada Ceelgaal. dabadeedna waxaan u qaybinay oo dib ugu celinay laanta Marooda. waxaan kaloo u soo qaybinay Ceelgaal, waxaan kaloo u qaybinay Aashacade. halka markaan joogno roob weyn oo lixadlaan u helay. gelin markaan joognayna waxaan tagnay laanta meesha la yiraahdo Riigana waan ka qaybinay. dabadeed qoshi baan nimid. markii dambena waxaan soo galay oo maanta ka qaybinay muddo 4 cisho gudahood Saylac. alxamdulillah ilaahay baa mahad leh. dawladda Turkiga iyo dawladda Soomaaliland walaalihiin inoo doonay intuu mahad bay leeyihiin. waxaan leenahay raashinkaasi kan uu noo imanaya hadii si wanaagsan loo qaato ama sida uu ku socdana mid walba iyo deeq walba way noo imanaysaa. deeqda ilaahay noo imanaysaa, tiimkiisaankan way noo imanaysaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. si kastaba ha ahaatee muddooyinkii ugu dambeysay ayaa deeqahani looga qaybinayay magaalooyinka Aashacado, Toqolcado, Ceelgaal iyo magaalada Saylac oo maanta loo qaybiyay. Xuseen Maxamed Cabdilaahi, shabakada caalamiga Channel News, magaalada Saylac.